السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كانال كسعودالك دونيدا iyo muuqaal cusub. Muuqaalkan aan ku eegayno tijaabada maskaxda. Haddaba daawade u diyaar garow muuqaalkan. Bukaan jiifay qolka 13aad ayaa caafimaaday. Bukaanka waxa uu doonayaa in uu salaamo dhammaan asxaabtii la jiiftay isbitaalka. sidoo kaleeta ha iloobin iriduna waxay ku taalaa qolka afaraad. waxa la doonayaa qofka caafimaaday ee jiifay qolka 13aad in uu qof walbo bukaan ahaa hal mar kaliya uu booqdo. lama doonayo qofka uu mar booqday in uu mar labaad booqdaa. haddaba waxa la doonayaa halka ugu fudud ee uu ku wada salaami karo asxaabtii isbitaalka la jiiftay ugana baxo idda lambarka afraad ee isbitaalka. طبعاً البرقسي waa waqti aad u yar sax balse waxa suurtagal ah qaarkiin in ay garteen jawaabta saxda ah. dadka aanan garan waxa u furan wuxuu waa muuqaal waa inaad pause gareysataa. screenshot haddii aad doonaysid ka qaadataa si aad u heshid jawaabta saxda ah. intaa kadib waxaynu u jawaabaynaa dadka aysan u soo bixin wax jawaab ah. haddaba u diyaar garooba jawaabta saxda ah. dhibka ugu weyn ee aad xalka la gaari weysay waa adigoo qofka 13aad ka ilaalinaya inuu hal qol laba mar galaa. laguma dhihin qolka ilaali ee waxa lagu yiri in uu laba mar qof asxaabtiisii ahaa booqdaa ka ilaali. haddaba xalku wuxuu noqonayaa muuqaalkan kooban ee soo socda. marka koowaad wuxuu aadayaa lambarka 9aad ama qofka qolka 9aad ee jiifay. kadib wuxuu soo laabanayaa qolkiisii hore maadaama uusan qolkiisii hore qof asxaabtiisii ahaa uu booqdaa aysan joogin. kadibna waxa iska noqonayaa xalka sida tan aad aragtaa. ugu dambeyn wuxuu ku gaarayaa qolka afaraad asigoo salaamay dhammaan asxaabtiisii isbitaalka la jiiftay.